liinta liin dhanaantaay war soo dhawaad bal waxaan farashan idin hayaa dhaanta waa saana dhaanta waa hebela dhaanta waa tana wax walba kaana unuka idin hayno waninka oo sugayseen waninka oo soo ducayseen waninka qaarkiin soo habaarayseen waninka qaarkiin beenta ka sheegayseen waninka qaarkiin runta ka soo sheegayseen caawade insha Allah waxaad u sugayseen iyo sababtaan u xidhnaa cidaan u xidhnaa iyo waxaan ahaa intaba insha Allah anigoo xor ah ayaan idin la wadaagi doonaa waan rajeynayaa inaad live ka share gareyn doontaan waan rajeynayaa wax ka yar 15 minutes inay dad aad u badan halkan soo fuuli doonaan insha Allah anigana waxaad iga sugaysaan maxaad iga sugaysaan warbixin fiican oo qurux badan ay ku jirin anaan ku jirin dagaal ku jirin intaba insha Allah idin la wadaagi doonaa balse waa goorma waa markii si fiican dadka leefka u soo bursamaan waa la iga dareemaa sameeyna liin soo cabi wajiga Allah xabsi wallahi su'aala bahal baa igu soo cunay magaciisa ma aqaan maxaa la jiray hoos ku soo qor xabsiga waxa dadka cunay boodamaan wax kale maxaa magaciisa sheega magaciisa muxuu ahaa bahalka xabsiga dadku cunay magaciisa muxuu dhilqe kaasa eberga dhigay eber iga dhigay bahalkaas wallaahi billah xabsi meel ma wallaahi kasoo dhalinyaro badan meesha ku xidhan yihiin haddana waan sugayaa kow ma joogno goormaa la xidhay waa ujeedaan dee inaan xoogaa rafaaday wejigayga ujeedaan wallahi xabsiga dhibaato waa ma fahamteen xabsiga dhibaato weyn waa wallaahi yaa waxaa ma maqlaysid waxaa ma arkaysid meel waxaa jira waxaa lasoo maraa room 5 iyo room 6 iyo balaayaa lasoo maraa wallaahi oo taagniya 24 saac oo taagniya oo fadhi aan lahayn yaa soo madoobaatay ma caddaan maa taala meesha wad ogtihiin caddaan maa taala hala shargareeyo live-ka wallaahi inaana caawa 600 ama 700 ka qof ka yar inaan waxba u sheegin runta idin sheegaa ka yar waxma u sheega ani dada shargareyn ii sheega marka insha Allah waan rajeynaa inaad soo badan doontaan inaad xogtooda sugayseen inaad YouTube iyo Facebook been la idinka dharjiyay intaan xirnaa la iga faa'iideysto Soomaa waxaasoo dhan waa aniga hadda jooga alxamdulillah wallahi free baana xornimada iyo qofku inuu yahay qof xor ah wax ka fiican ma jirto hadda waa soo ogaado wallahi dad badan oo saaxiibinaya iskale hala share gareeya dadka waa MB-ga ugu yaro MB-ga idinku yaro marka koobaad Allah subhanahu wa ta'ala ii suurta galiyay inaan xorriyadeyda doob helaya mahad iskale anigoo faraxsan caawa anigoo xora anigoo xabsi ku jirin maskaxdayda taam tahay alxamdulillah rabbil caalamiin marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay in la soo daayo oo igu horeeyaan familkayga iyo asxaabtii kale ay qayb ka ahaayeen xasan maalin oo runtii nin dhalinyaro ah saaxiibanaya oo asaga laftirkiisu maalintii page-kan la xiri doono ka hor aan maartay qoraal aan u qalmin oo asaga laftirkiisa aan u fiicnayn aan halkan ka soo dhigay oo maartay saaxiibkeena si live aan uga raali gelinayo qaybna ka maanta in la soo daayo waxaa kaloo rabaa inaan xaggan uga mahad celiyo dhammaan saaxiibadii kale oo nimcaan ay ku kaayeen iyo maxkamadda gobolka Banaadir gudoomiyaha maxkamadda runtii iyo dhammaan dadkii ilaalay maxaa dhahay dacwadii iyo maxaa dhahay wixii sharciga ma garanaysaa wixii la haystay marka walaalayaal dhammaantiin sidaad ogtihiin qofku wuxuu dadka kala bartaa markay dhibaato kula soo daristo markii aad xaalad dareento ayaad ma aragtay wax walba kala ogaanaysaa alxamdulillah maanta waxaan ogaaday dadka cadowgayga dadka kale
dadka beenta ii sheego dadka ii qoslo dadka maaragtay laakiin aan horumarkayga iyo maxaa la dhahay wanaagayga aan rabin balse jecel inay markasta god igu ridaan dadkaas ayaan runtii kala bartay fanaaniin soomaaliyeed shacab soomaaliyeed ayaa ii soo duceeyey ayaa maaragtay ilaahay ii baryey inuu ilahay xabsiga soo daayo kuwaasoo maaragtay ilaahay uu ka maaragtay ducadoodii uu ii aqbalay alxamdulilah ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo wixii iigu daraa xabsiga aan kusoo arkay wixii iigu layaabka badnaa xabsiga kusoo arkay dhibaatadii ugu weyneyd oo maaragtay aan xabsiga kusoo arkay anigoo hadda faraxsan caawa oo dareemaya inaan dhibtaa ka soo baxay sidaa hadda aada wada dareemaysaan codkayga uu xidhan yahay codkii aada igu ogeydeen maaha codkaas wuxuu ii xidhmay waxa weeyaan dhibaatadii aan xabsiga kala kulmay nadaafad daradii haddii ahaan lahay cunto xumadii iyo maxaa dhahay waxyaabihii kala duwanaa aan meesha kusoo arkay runtii anigoo ka fikiraya ammaankayga iyo xaaladahayga gaarka ma doonayo waxyaabo badan oo negative inaan sheego laakiin wax yar baan ka dulmaraya waxa weeyaan sidaad wada ogtihiin oon horeyna idinku sheegay aniga kiiska wuu ka madax banaan yahay wax hadda youtube-ka iyo facebooka la wareejinayo oo ah inaan shabaabnimo iyo wax lamid aan ku xidhanahay waxaan idin sheegay arrintaas inayna sal iyo been inayna raad sal iyo raad toona ayna lahayn aniga aan qofkaa taqeena inaan ahay meesha aan ka imid iyo cid kastoon ahay backgroundkayga dhanna la wada ogyahay oonan anigu waxaasaana ku lug lahayn taasina ay keentay in si fudud oo alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan aan maanta xorriyaddeeda ku helo aniga habeenkii isniinta ahayd ayaa waxaa laiga soo wacay degmada saldhigga laiga soo wacay waan ajiibay runtii waanan tegey markii la yidho dacwad baa kaa taalo dhibaatada ugu badneyd oo maxaa la ugu xumeyd meeshaan kala kulmay waxaa iga raalli ahaada saldhigga degmada hodan ayaan dhibaatadii ugu xumeyd kala kulmay wallaahi been ma idiin sheegaaye waxba idinkama qaran ummadda soomaaliyeed dhididkii aniga iga baxay shamiitada intuu ka qulqulay wuxuu u baxay ilaa banaanku qulqulayay runtii oo banaanka biyo caadi a subxi ayuu ahaa oo xabsiga ma garanaysaa qolka igu xidheen balanta markii hore degmada ay ii yeereyseen waxay ahayn anaga dacwadaasaa noo timid waxaan rabnaa inaan dadkaas runtii mana ka filinayn runtii in sidaas degmada la igula dhaqmo oo sidaas sidii qof soo diloo kale la ila dhaqmo degmada runtii ma jeclaysanin waa dadkayga walaalahay aad bay si xun bay maaragtay oonan jeclaysano qof muaadin soomaaliyeed aan loola dhaqmin bay ila dhaqmeen xataa waxaan ku yihi biyaan ku tukada ii keena wallahi ma ii keenin biyaan ku tukada xataa way ii diideen habeenkii 2 saac meeshaan istaagay saldhigga qol madow oo maxaa la dad lagu xidhxidhi jiray oo waxa yaala qashinka iyo bahla galeenka waxa yaala aadan malaysan karaynin baa runtii baa la igu soo xareeyey salaadeedu waan iska niistay alxamdulillah waan iska tukanayay waxa iswadaba waagiwa ay bariyey runtii aad bay maaragtay ii dhiftay arrintaas oo sida hadda dhafoorkayga ama duujiyay ka dareemi kartaan in dhibaato badan maaragtay iyo oo arrimo badan runtii inaa wejigayga waad u wada jeedaan qofkaad wejigiisa taqina inaan ahayn runtii xabsiga dhexe caadi buu iska ahaa xabsiga dhexe ayaanan ku xirnaa sidaad ogtihiin oo gaal shiro haggaasaan ku xirnaa aad bay ii soo dhaweeyeen maxaabiista runtii si fiican ba meeshaas waxaa weyaan ciyaalkii maxaabiista way soo dhaweeyeen meesha waxaan ugu tegay niman wax walba la socda waxaan dhahaye adigana ma noo timid soo dhawow caruuska soo dhaweey waa kuu sacbinayaan maxaabiista niman fani a weyaan soo dhawow way sacbiyaan si fiican bay ii soo dhaweeyeen marka ciqaabta iyo maaragtay qof maxbuusa wixii la marsiinin baa la imarsiiyey qof fanaana iyo qof xasaanadle iyo qof shaqaal sina waxaas la ilama dhaqmin laakiin midda aan marnaba iloobeyn waxa weyaan degmada waan ii sheegaya degmada hodan wallaahi bilaahi tallaahi hadda markaan soo maray alaab baa iga tiilay been madish waan is celinayaa xataa markaan galay dadka kasoo baxa waan nacay ma arki karo wallahi waan dhibsanayay yacni waad dareemi kartaa meel qof lagugu ciqaabay oo aada lagugu dhibaateeyey waad dareemi kartaa xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay subaxii xitaa markii anoo gacmaha ka xidhan lasoo bixiyey taliyaha degmada wuu joogay
canaantay xitaa nimankii wuxuu yihi ka furo fanaanka katiinada maxaad u katiinadaysaan oobigaa laiga qoreeyay marka waa la iga furay inkastoo markii dambena laigu celiyay ilaa si dhiid ilaa maxkamadda aan ka tegaayo ilaa xabsiga aan katiinadaysnaa on gacmaha aan ka xirnaa haddana de waxaas nin ragaa loo yahay ragga dad madaxweyneyaal ayaa soo maray xabsi qofkii ugu horreeyey ma runtii taas marka dhiirigelin bay siinaysaa laakiin wallaahi waxaan ku sigtay xitaa inaan soomaali ma ihi yani sidii degmada la igula dhaqmay runtii dhibaatadaas ugu weynna ninka ii geysta waxaa taliya ku-xigeenka degmada inaad wada garanaysaan ani waxba igama gelin inaad wada garanaysa waan filayaa taliya ku-xigeenka degmada hodan ninka sidaas ciqaabay isaga ayuu ahaa runtii si bini aadamti wuuna khiyaamay markuu ila soo hadlaayay wuxuu dhihi karay dacwad baa kaa taalla maadaama hadda amarkii saldhigga ajiibtay berri noo soo laabo si dacwadaada loo qaado laakiin alaabtii iga teleefanada igu qaaday waxaan ku idhi niyow reer baan kasoo tegay famil baan kasoo tegay hooyayaa jooga dad badan baa jira waa la iga walwalayaa walaal waxaan doonayaa inaan familka la hadlo maadaama aad xidhayso runtii taliya ku-xigeenka degmada igamuusan ogolaanin inaan familkayga la xiriiro arrintaasna ma arti bini aadamtinimada ma ahayn wax qurux badanna ma ahayn qof walaalkaa ood garanayso oo ajiibay maxaa la dhahay amarkaagii in sidaas loola dhaqmo runtii waa rajeynaya inay daawanayaan taliyaasha iyo dadka xukuma inaan dadka saas loola dhaqmin ma qurux badna qof muwaadina xataa hadduu dhiig galay wixii igu layaabka badnayd oona weligii ilooben hala shirgareeya waxaan rabaa in cibri qaadasho ay noqoto wixii igu layaabka badnaa oona weligii ilooben waxay ahayd saldhigga markaan ku xidhnaa degmada runtii markaan xasuusto wallahi wadnahaas kale ay noqonay wallahi yacni hadda waxaa weeyaan farxaddayda iyo ma garanayo dareenkayga waan faraxsanahay runtii xorra waanahay marka laakiin dhibaatada waa in la sheegaa marka runtii waxaana ilooben waxay ahayd 6 saac oo habeennimo 6 saac oo habeennimo ayaa la ila soo xiray nin 6 saac oo habeennimo ayaa nin la ila soo xiray marka ninka la ila soo xiray waa degmada hodanya ninka la ila soo xiray 6 saac oo habeennimo markii la ila soo xiray ninkaas qof buu soo dilay wuxuu arkay aniga oo runtii wuxuu arkay anigoo runtii aada u dhididaya oo biyo badan iga socdaan meeshana magaalada waa ogtiin aad ba u kulushahay aad ba u kulushahay hala sheergareeyaa ani muhiim ay tahay wallahi taarikh bay tahay inay dad badan arrintan ay gaadho muhiim ay tahay wallahi muhiim ay tahay waayo wax badan baan soo arkay ma garanaysaa in waddankayga lagu ciqaabay aniga aan iska lahaa oo mar kasta wallahi aan ku faanayay marka wallahi marka markii la ila soo xiray ninkaas wuxuu igu yidhi maxaad saa ugu dhididaysaa wuu igatay wuxuu yihi waxaa yaa ku soo xidhaan ku yihi markaasu wuxuu yihi waxaa ma qaranayo wuxuu yihi waxaa isoo xidhay mahadku taleefonkaa loogu sheegay in la xidhaay lagu soo xidhay taleefonkaa loogu sheegay marka kabahayga biyihii jirkay ka dhacay kaba buudan qado way buux dhaafeen dhulkan ku daadinaya caadi bay u socdeen banaanka xataa askarta subaxi way arkeen marka dhibaatada waxaan uga sheekeynaya waxa weyaan dadka inay dareemaan marka waxaan maqli jiray dadka libiya ku dhibaataysayin dadka libiya kuma dhibaataysan xamar ku dhibaataysayin libiya iyo waxaa la idin tusay been waa nin dadka inta ku dhibaataysayin ma fahamti marka alxamdulilah waan rajeynaya hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda inay arrimahaas wax badan kala socon doonaan dadka dhibaataysan markii la ila soo xidhay wiilkii sheekada idinka qasina adinkana saad ugu cibro qaadataan wiilka markii la ila soo xidhay waan u sheegay marka waxaa la isoo xidhay buui wuuna igartay cabdidhaan saadi maha marka wuxuu yihi maxaad cabdigooda newsaan ugu dhididaysaa maxaad kuleylka markaasaan ku ihi niyahow haddana waan caburmay meesha maadaama wasaq hayd maansalugale iyo bahali iyo qashin iyo dad hore ugu soo xidhnaa kaadidooda oo baca ku jira iyo qolka oo degmada weeyaan xabsiga dhexe lama gaadhin qolka degmada weeyaan marka maxaad saa ugu dhidaysaa markuu igu yidhi waan u sheegay waxaan ku ihi niyahow kiis yar oo qof aan saf dhaafni darti baan u xidhanahay markaasuu uri walaal cabdi wax walba ilaahay qadartiis weeyaan anigoo qof soo dilay ayaa kula xidhan isdeji buu igu yihi runtii waan ilmeeyey
si kala noqday ani dhan waan isbedelay marka waxaan sii cabdi dhaantow ilaahay noloshaada suu ku wada caawa ma wuxuu ku keenay qof bini aadam oo qof soo dilo dhig islaamaan qaba ah bilis la sheergareeyaa lifekayga waan ka codsanaa codsi weeyaan ayaan caawa aad xabsi kula jirtaa marka haddana waxaan ku odhaya alxamdulilah dhama lahaan adu sidii waagu noogu bariyey intii aan ku jiray baaritaanka c i d da iyo c i d da iyo maxkamadda wax dhibaataa lama arag runtii maxkamadda intaan ku jirana runtii maxkamaddu si fiican bay noo soo dhaweeyeen inta badan maxkamadda dadkii ka shaqeynaya macalooyaradii iyo abukaatayaashii dhammaantii dadkii xitaa warqadayda oo saxiixayay xabsiga dhammaantood waxay ka midaysnaayeen inay dhahaan arrinta dacwadeeda yani dadkii wada in laga laabto ay dhahaan dacwaddan halalaalo oo taasoo muujinaysa dadku inay aada u jiirnaxayeen oo ay ka diirnaxayeen yani qofka soomaaliga laakiin runtii waxaan aada uga xumaaday aada u dhibsaday ciidanka booliiska ku sugan degmada sida ay la dhaqmeen wallaahi qof muwaadinaan ahay walaalkood baan ahay ma qurux badna inay sidaas ila dhaqmaan ma wanaagsanayn qof wax soo dila maan ahayn faldambiyeed ma la igu soo qaban qof biliisa la sheergareeyaa hala sheergareeya maynan qurux badnayn waan rajeynayaa runtii dhibaatadaas iyo dhididkaas ana iga baxeen ayaga xanuun ma dareemayaan caawa laakiin qofka wax dareemaya aniga weyaan waan u mahad celinaya dadka soomaaliyeed iisoo duceeyey waad mahadsantihiin waan ogahay dadka qoraalada qoraya ka idinka dhammaa qalbigiina inaad ku faraxdaan xabsi dhibaatada u leeyahay waad ogtihiin runtii inaydaa ku faraxsaneen inaynan qurux badnayn qof walaalkaa hala sheergareeyo bliis inaynan wanaagsaneyn in sidaas loo ciqaabo runtii dad badan way saadaalinayeen in la xidhayo dad badan baa saadaalinaya dad badan baa iiga digaayay marka alaa kulli xaal way dhamaatay wixii alxamdulilah ani hadda waxaan ka ahay nadiif cid aan wax u qabo iyo cid aan maanta dacwad u raacanayo kulligood cafisay iga yihiin waayo dad walaalahay weeyaan maanta haddii waddan kale aan joogi lahaa oo ama meel kale aan joogi lahaa runtii dhibaatadaas waa maaragtay waan oyn lahaa soo maaha laakiin haddana maadaama dalkayga iyo dadkayga laigu dhibaateynayo waxa weyn maaha big deal maaha waxaan halkan ka caddeynayaa inaanan jirin maaragtay dacwad hadda la ii haysto inaysan jirin eedeymo la xiriira al-shabaabnimo iyo wax la halmaala inaynan jirin waxyaabo maaragtay kale oo la igu haysta inaysan jirin oon ka ahay maaragtay wax walba nadiif dacwadeedina gebi ahaanba laga laabtay 3 habeen aan xirnaa habeen waxaan ku xidhnaa saldhigga degmada hodan habeenkii aan facebooka soo dhigayay waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego facebooka markii aan soo dhigayay maxaa la dhahayay aan soo dhigayay qoraalka wallaahi bilaahi qoraalka anigaa gacanteeda kusoo qoray taleefanada banaanka laga reebay anoo saldhigga ku dhex xidhan mooji meelaan taleefonka ka keenay waa ibaadheen askarta markii dambena indhahan u shatay subaxii bay ahayd subaxii aan soo dhigay boostiga taleefonkiina meesha ku tuuray ayaga u taallaa marka alxamdulilah cafowna lilah ilaahay dartii qof walba waan cafiyey marka cid kasta waan cafiyey xitaa dadka icaynaya kulligii waan wada cafiyey ilahay dartii waan ku cafiyey waxaan ka gaabsan doonaa insha allahu waxyaabaha beersinaalka oo dadka gaar aan ku ataagayo waan ka gaabsan doonaa dadka youtuberska oo sida khaldan iiga faafiyey xogaha khaldan waxaan idinka codsanayaa qof kasta oo lifekayga daawanayo iyo qof kasta oo lifekayga daawan doona waxaan idinka codsanayaa dhammaan dadka videogiisa isticmaalay inaan ka wada saari doono youtuberska ballan ilaahay waa ballan ilaahay waxaan ballan ku qaadnay insha allah igana caawiya dadka daawanaya dhammaantiin iga caawiya hadduu ilaah yidhaahdo si dadka youtubeyada isticmaalayo oo wejigayga isticmaalayo in aydu igala saartaan hawada videogi iyo maxaa la dhahay waxyaabaha sumcadarada aniga ii keenayo oo la iga fidanayo dadka iga fidanayo dhammaantood inaad igala shaqaysaan sidii aan uga saarinaan gebi ahaanba baraha youtube-ka iyo baraha facebooka inaan meesha ka saaro igala shaqeeya dadka sida qaarka it-ga ugu takhasusay iyo hackerska youtuberska sida loo xidho
dad badan way ila soo xiriireen kuwa kalena waxaan rajeynaya inay ila soo xiriiri doonaan whatsappkayga pagekaygu inta badan saaran yahay inay ila soo xiriiri doonaan rag baa loo sameeyey rag baa ku xidhan kumanaan kun baa ku xidhan kumanaan 1 2 3 si gaara waxaan uga codsanayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed waa idaawanayaan live-keygana waad gaarsiin doontaan ilaahay baa idinku dhaarshay rasuulkiisa idinku dhaarshay dadka idinka mas'uulka ah waxba idinma sheegay laakiin waxaan idinku codsanayaa inaad booqato si kadis inaad ku booqan doonto ma doonayo anigu inaan hadda wax sheego cabdi waxaas la sheegay laakiin waxaan rajeynayaa inaan anigu dhibaato ka sheekeeyo ma doonayo laakiin si kadis inaad ku madaxweynaha kulligiin taliyaha xataa ma si kadis iyadoo looga inaad booqato xabsiga dhexe xaaladaasna aad wax ka soo ogaato bas anu ma sheegay hadda inaan wax ka sheegana ma doonayo laakiin aan soo aragto waxaa igu filan 3 habeen oo taagnida aan kusoo qaatay codkayga iyo muuqaalkayga waxa dhan isbedeleen taas maartay waan u mahadcelinayaa si gaar iyo si guudba in alla intii gacan ka geysatay si gaara waxaan horey waan u sheegay xasan macalin walaalkay xasan macalin raali gelin baan halkan ka siinaya maalin dhaweyto facebookiisa aan kusoo qoray al-shabaabnimo wax lamida walaalkay oo gef ku ah hadalkaas waan ka raali gelinayaa waxaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo ii gurmatay ii soo duceeyay ka dhidhiyay xabsigayga iyo sida la xiray ayagana waa xaleeyahay aad baad mahadsantiin kulli shacabka Soomaaliyeed iyo waalidkayba si gaar ah ayagana waan u mahadcelinayaa waalidkay gaar ahaan familka aan ka dhashay oo kaalin muhiim ah ka ciyaaray in la soo daayo maadaama dambi maartay la igu haysay alaa xal kulligood mahadsantiin anagana waa in kala bartay waan kala bartay dadka cadowgayga waan kala bartay dadka taliyaal generaalo xildhibaano oon saaxiib ahayn markaan xidhnaa adeer dhagta jalaqla iyo wada ma fahamtay laakiin maanta xor baan ahay idinkana maalin baan ogaan doonaa marka insha Allah waan salaamaya habeen wanaagsan dadka aan idin sheegay oo waxa sumcad darad aad fidinaysan ma fiicno hala joojiyo wallahi haddaad joojin weydaan waxaad ku weynin doontaan YouTube-kiina aad muddo badan u rafaadi jirtaan ayaad ku doontaan aad baad mahadsantiin live-yada kale iyo xaaladaha kale oo runtii soo arkay dhibaato kama sheekeen hadda midda saldhigga maan ka sheekeeyey oo si xun la igu galay wallahi bilaahi markaan soo xasuusto wadadaas taxtaa inaan isticmaalo ma rabo degmada hodan wadadaas wallahi xitaa inaan isticmaalo ma doonaya wadadaas waayo waa la igu dhibay marka cidnana dacwad ma qabo cidnana maxaa la dhahay dacwad kama qabo sidoodan kulligood ku wada cafiyay ma garanaysa cid aan dacwad u qabo ma jirto marka aan xor baanahay wax walba oo igu sheegteena anigu waan idin cafiyay wax walba hadda anaga aad igu tilmaanteen anigu waan idin cafiyay qof kasta oo been iga sheegay iyo mid run iga sheegay aniga cafi musaafax baad iga tiin ma garanaysa waan ogahay dad badan baa igu been abuurtay magacyo been Facebook been iga sameeyay beenina waan ka ani page kale beento la sameeyay anigu waxba kuma lihi aniga waxaan leeyahay page kan aad igala socotaan iyo Facebook-gayga caadiga oo 34,000 oo followers-ka marayo waxa kale oo dhan waa been insha Allah waxaas oo dhan waxaan rajeynayaa Cabdinaasir Doole dad badan oo aad u yaqaan waxyaabahan hadda IT-da kulli inay igala shaqeyn doonaan iyo saaxiibada kale ila soo xiriir doonaan inay igala shaqeyn doonaan dadka videos-kayga isticmaala iyo dadka sawiradeeda isticmaala iyo dadka accounts-kayga isticmaala dhamaantood inay maxal dhahay ay igala shaqeyn doonaan dadka wax kale iga sheegay Soomaa oo dhahay Cabdi Dhaantu xidhan adeer waa la xidhay xabsigana nin rag baan waa la isoo daacay gurigeygii VIP-da waan ku jiraa
xor baan ahay magaaladan xor baan ka ahay cidi haysatana ma lahan waan u mahadcelinayaa cid kastoo maaragtay waan kusoo celcelinayaa qayb ka geysatay si gaarana maxkamadda gobolka banaadir oo ugu horreeyay guddoomiyaha maxkamadda iyo dhammaan howlwadeenadiisa ayagana waan u mahadcelinayaa iyo xasan macalin liibaan lamaane walaalkay mahdi sheekh axmed mahdi sheekh cabdullaahi nimcan hilaac walaalkay sidoo kale magacyadooda waan sheegayaa cisdiin kale oo kulli ilma adeeradaya sidoo kale ibraahim yalax iyo dhammaan dadkii kale oo dhinaca kale ka socday odayaashii kulligood waad mahad celinayaa maaragtay jisaar meehi nin abaal oo abaal qofkii abaal u galo garanayaan ahay waan u mahad celinayaa insha allah anigoo wejigaygu sidan ka duwan yahay ayaan maaragtay life idinla hadli doonaa xaaladaha kalena insha allahu aan maaragtay aan idinla wadaagi doonaa waan rajeynayaa inay ila soo xiriiri doonaan dadka u dhaqdhaqaaqa ama u ololeeya xuquuqaha dadka dhibanayaasha tusaale ahaan dadka xiran oo waan rajeyn doonaa insha allahu tacaala inay ila soo xiriiri doonaan dadka xuquuqda bini aadamka u doono sida gaarka ugu dooda marka waayo dhibaatooyinka badan oo hadda aan arkay inaan ka sheekeeyo anigan bay dhibaatooyi keenaysaa mooyaan cidna faa'iido ma keenaysa ma garanaysaa marka insha allah waan salaamayaa iska kii cafiyo walaalayaal dhibka halaiga joojiyo si dar ilaahay dhibaatada halaiga daayo walaalkii baan ahay dadka idacaadeynay iyo aflagaadada igu haayo waxba kama dheefaysaan waad igu aakhira seegaysaan anigan baa dembiga iga yareynaysaan iska kii daaya ma garanaysaa gaar ahaan dadka youtube-ka iska kii daaya nimayo lacagtaada iga dheefaysaan xaaraan bay idinku tahay oo been abuurka iyo dacaayadda iyo wax kale aad ku raadinaysaan dadka qabyaalada iyo qabiilka iyo waxaas qalbigiina ka buuxana adeer waxaas qalbigiina ka saara ayaan idin leeyahay ma fahmaysaa ka saara dhammaantiin guuleysta idinma ilaawi doono waana idinkala bartay dadka iisoo duceeyay dhammaantiin waan idinkala bartay aad baad mahadsantihiin ama walaalka laftirkiisa waxaa jira dad qof walaalkaa oo kula dhashay oo intaad xidhan tahay aan ku dareemeyn waxba kuusoo direen fiiri qofka xabsiga ku jiro taleefonka caadi ma garanaysa waxyaaba badan baa jiro markaad banaanka joogto ood qurux badan tahay ood shidan tahay walaalkay hebel saaxiibkii aa lagu leeyahay laakiin markaa maxbuus tahay oo dhibanan tahay cid kuulaha soo hadlaysa malaha fahmaysaa marka qof walba qalbigiisa ha ku jirnaado inuu taxadar badan sameeyo dadkana inayna isku mid ayna idiin noqon kulligiina dadka waydu kala baran doontaan aniga maanta dadka waan kala bartay muuqaalkayga iyo wejigayga waad ujeedaan 3 habeen isku xigta waan taagnaa fahmaysaa dhidid baa iga daaya fahmaysaa dhidid caadi iga daaya lugahayga ilaa hadda waxa weeyaan ilaa hadda lugahayga wallahi waa baraf caadiya ma garanaysa baraf bay noqdeen marka dhib ma lahan waan cafiyey waddankayga iyo dalkaygii baa laygu xafsiyey dhibaatana ma qabo 3 cishaan kusoo baxay alxamdulilah dadka siyaabaha qaldan u fidinayana anigu alxamdulilah anu qof muwaadina oo shacbaan ayaan ahay shabaab ma ahi balaayo kale ma ahi cid kale uma shaqeeyo waxaan shaqeey qof shacab oo dadkaas xuquuqdooda iyo maaragtay xuquuqaadkiisa iyo waxaas maaragtay u dooda oo ka shaqeeya ayaa noqon doonaa insha allahu tacaala wax baynu kala faa'iidi doonaa adinkana waan rajeyn doonaa inaad cafin doontaan inaydu maaragtay aydu iisoo ducayn doontaan anigana insha allah quraan baan isku akrin doonaa quraan baan saari doonaa qalbigaygana insha allah okay iska noqon doonaa waxyaabihii dhibaatadii aan la kulmay kullina insha allahu waan siday tahay baan ku cafiyey waana cafin doonaa insha allahu tacaala marka khayr baa idin rajana walaal habeen wanaagsan guuleysta